saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada ku yeeshay xoolaha ku nool dhulka abaaraha iyo dhulalka qalalan ee Kenya lama dafiri karo. Abaaro daba dheeraaday, roobab aan joogto ahayn iyo musiibooyin cimilo oo soo noqnoqday ayaa sii wiiqaya nolol maalmeedka bulshada reer guuraaga ah, kuwaasoo noloshooda ay ku tiirsan tahay xoolaha. Barnaamij gaar ah kooxdeenu waxa ay ku tagtay magaalada Butte ee waqooyiga Wajeer, halkaas oo aan ku duubnay muuqaal tayadiisu sarreeyo. Halkaas waxaa ka muuqda Shaletay Farm Limited oo ku taala dhul 10 ekar. Beerahan casriga waxay diiradda saaraan soo saarista cawska daaqa oo nafaqo leh, kaasoo xoolaha u yahay nolol badbaadiye marka abaartu ka dhacdo gobolada oomanaha. Shaletay Farm waxay beertaa cawsyo kala duwan oo nafaqo leh sida Jankao grass oo laga keenay Shiinaha, Super Napier grass, Sweet Potato Vines, Brachiaria hay grass iyo Lucerne. Kuwaani waa quudin muhiim ah oo xoolaha ka caawiya inay badbaadaan xilliyada abaarta ugu daran. Marka la gooyo, cawska waxa uu maraa habraac adag oo ka kooban jarista, daweynta iyo siligeynta. Shaletay Farm waxay leedahay awood sare oo ah in ay keediyaan 150 tan, taasoo xoolaha ka caawisa inay helaan quudin. Sidoo kale, baqaar casri ah oo lagu kaydin karo ilaa 4,000 oo xirmo oo cawsa, kuwaasoo loogu talagalay lo'da, geela iyo ariga gobolka. Beerista cawska daaqa ee waqooyiga Kenya waxay sidoo kale leedahay fursado badan. Waxay abuureysaa silsilad qiimo leh oo ka bilaabata beerista, habeynta, ilaalinta, gaarsiinta iyo iibinta. Shaletay Farm waxay suuqa geysaa 3 badeeco oo waaweyn, kaasoo lagu iibiyo 20 shilin midkiiba. Hay bales waxaa lagu iibiyaa 300 oo shilin iyagoo adeegsanaya farsamo casri ah. Waxay sidoo kale soo saaraan grass pellets oo nafaqo badan leh iyadoo loo marayo pelleting machines. Beeraha waxa kale oo lagu daray wax soo saar isku dhafan. Lo'da lagu hayo xerada oo lagu quudiyo beerta ayaa waxay soo saartaa caano cusub oo loogu talagalay qoyska iyo suuqyada deegaanka. Dhinaca kale, waxa kale oo lagu beeraa dalagyada cuntada muhiimka sida yaanyada, qaraha, galeyda, babayga, digirta iyo basasha, taasoo wax weyn ka taraysa amniga cuntada ee deegaanka. Hase yeeshee, caqabado ayaa jira. Shaletay Farm waxay ku tiirsan tahay balli biyo ah oo ay dhistay National Drought Management Authority oo loo soo gaabiyo NDMA, kaasoo loo adeegsado waraabka. Si kastaba ha yeeshee, iyadoo biyo yaraantu iyo abaartu soo noqnoqota, dhibaato weyn ayaa ka taagan helitaanka biyo ku filan. Cabdiraxmaan Cali Xasan oo ah asaasaha iyo agaasimaha Shaletay Farm oo la hadlayay ARF Media ayaa dib u xusuustay abaaraha 2021 iyo 2022 oo xoolihiisa oo dhan ay ka baaba'een. Musiibadan shakhsiga ah ayaa ku dhiirigelisay inuu u jeesto beerista cawska daaqa. Ma aha oo kaliya badbaadintiisa, balse sidoo kale sidii uu u badbaadin lahaa nolosha reer guuraaga kale ee ku nool gobolada oomanaha. Waxa uu yiri, marar badan iibinta cawska aan beerno waxay badbaadisay xoolo geeriyoon lahaa. Xoolaha marka aad badbaadiso, waxaad badbaadisay qoys, nolol iyo sharaf. Gabagabadii, Shaletay Farm waa wax ka badan beer, waa sheeko ku saabsan adkaysi, hal abuurnimo iyo rajo ay dadku ku wajahayaan isbeddelka cimilada. Waxay tusaale u tahay sida khasaaraha loogu bedeli karo fursad, isla markaana lagu taageeri karo dhaqaalaha reer guuraaga, lagu xoojiyo amniga cuntada, loona hubiyo in dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada ee asal aanu noqon mid niyad jaba, balse noqdo mid adkaysi, halgan iyo badbaado ah. مدك بيوها يصدانو برتمها وبيار القرية والوغدا بالكولا وبريني وايو باريني يكو خلصي وبابا جدا
كبردنا بايقا مقويسي بلنتينو واشقو بلنتين واشقو بلنتينو واشقو بلنتين واشقو beertan waxaa la dhahaa Shaletay Farm waxay ku taalaa Butey oo Jir County runtii badanaa waxaan abuurnaa aan beernaa calafka xoolaha coos kala nooc ah ilaa 5 nooc oo coosood oo ay xoolaha ku candiyaan ku caaneeyaan taana waxaan ugu kalifay abaarihii isdaba jooga ahaa oo soo noqnoqanay oo xoolihiin leheen oo baabi'iyay markan taa waxay nagu dhalisay in aan ogaano noociin hortii xoolo u dhaqaalay jirno xoolaha u daaji dirno qofka inaa sahniyo oo xoolaha la guurguuri jiray inay hadda kadib oo arqalada weyn oo ku imaadeen abaaraha awgeed iyo population-ka oo sii badanay markan cooskan oo kale ninkii kaydsado abaaraha looga gudbaa xoolahana zaid ay ku candiyaan ayna ku caaneeyaan waxaan u sheegi lahay dadweynaha reer Wajeer iyo North Eastern oo dhan in ay coos beeraan calafka xoolaha si ay hantidoodii iyo xoolahoodii u baaba'in marka ay abaaraha imaadaan oo ay abaaraha uga gudbaan beerta waxaa kale aan ku abuurnaa qudaar kala nooc ah sida basasha iyo yaanyada markaan runtii hanti waxay ku jirtaa dhulka dadka waxaa loo baahan yahay inay tacab u jeestaan oo muruqooda maalaan oo dhulka wax ka soo saaraan cooska waqtiga abaaraha waana iibinaa dadka markay ay mataqaan u baahdaan asagoo qalalan oo xiran iyo asagoo silage laga sameeyay waa coos la qamiiriyo oo birkad lagu xareeyay oo taana waxay u baahan tahay baritaan in dadka la baro dadka ku baraarugaan sida cooska loo keedsado si waqtiyaha abaaraha ay xoolihii aan u baaba'in oo ay uga gudbaan abaaraha daran oo waqti kastaba xoolaha hantidii oo mataqaana dadka guuraaga baabi'isa beertaasin kugu sheegay waxaan ku abuuraa qudaar oo kala nooc ah waana arki karnaa waan dhex tegaynaa oo yaanyo iyo basal leh beertan waxay jirtaa horta 5 sano sanadka hadda aan joognay 2020 aan bilawnay inta aan waxan baan ka soo saaray laakiin hadda waxaan u badahayaa dhanka calafka xoolaha beeritaankooda acreage inta uga weyn ilaa 10 acres yaan hadda coos ku abuuray cooskaasna waa la jaraa mid qaar qayb waa la qalaliyaa saa lagu kaydiyaa qaybna waa dhulka birkada la geliyaa daawa molasses la yiraahdo iyo monoplus wax baa lagu daraa maxaa la dhahay livestock microbes si cooska asagoo saa uga keedsanaado waxa uu laga dhowraa dabeesha iyo biyaha ilaa iyo 10 sano waa si alla cooska asagoon halaabin waqti loo baahdana xoolaha la siisanaa qofkii haysan inuu mataqaan xoolihiisa coos u haynin waa laga iibina markan waa ganacsi abuurkiisana waa gada stem cuttings cooska noocaan ay to Chinese laga keeno Junkawa halkii stem waxa la gadaa laanti oo abuurkiisa waxa la gadaa 20 shilin hadba beeca waa la siyareynaa hadba qofka intiis gadanay quantity badan qayb badan oo mataqaan oo cooskaas kamid ah